xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinta ee doorashooyinka 2020ka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo isdiiwaan galiyay waxay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu codkiisa dhiibto iyadoo aan loo eegayn muuqaalkiisa dhaqaalihiisa lixaadkiisa iyo halka uu ka soo jeedo midna sidoo kale dastuurku wuxuu muwaadinka siinayaa xaq ah in uu xisbi samaysto ama uu ku biiro xisbi jira oo uu ku qancay mabaadi'diisa muwaadiniinta way u sameeyeen yihiin ka qaybgalka codeynta codbixiye kasta wuxuu leeyahay hal cod oo kaliya maalinta doorashada qofna lama siin karo fursad codeyn oo dheeraad ah codbixiyaha isdiiwaan galiyay kaliya ayaa heli kara fursadda codbixinta maalinta doorashada codadka lama iibsan karo lamana iibin karo codeyntu waa ikhtiyaari hase ahaatee muwaadin waxay mas'uuliyadi ka saaran tahay in aad dalkaaga u doorto hogaamiyaha saxda codbixiyaasha waxa ku waajib ah in ay si fiican u fahmaan nidaamka codeynta oo dhameystiran sida calaamadinta warqadaha codeynta si cabsida iyo khatarta looga ilaaliyo muwaadinka loona xakameeyo laaluushka wuxuu muwaadinku u codeynayaa si qarsoodi ah wuxuuna ku codeynayaa meel ka qarsoon dadka intiisa kale oo loo diyaariyay marka aad noqoto muwaadin firfircoon oo dareensan lahaanshaha wadankiisa ayaa talo ku yeelan kartaa doorashada wakiilada siyaasadda kugu matala ee gaara go'aamada saameynta ku yeesha noloshaada iyo mustaqbalka dalkaaga muwaadin waa in aad ogaato oo aad si fiican u dhuuxdo aragtiyaha iyo siyaasadda musharaxiinta iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada dalka si aad codkaaga u siiso midka ugu wanaagsan ee aad ku aamini karto hoggaanka dalkaaga sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya doorashooyinka waxaa loo qaban doonaa si joogto ah qof kasta oo doonaya in uu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka waa in uu dadka hor yimaado isla markaana kasbado kalsoonida shacabka si uu u helo codkooda dastuurku wuxuu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku waajibinayaa in ay dalka ka hirgeliyaan doorashooyin guud oo xor iyo xalaal ah 4 sanaba mar muwaadin codkaagu waa muhiim maxaa yeelay wuxuu horseedi karaa dawladnimo ku dhisan dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan